waxaan nahay wahdiga dugsiyada ومادة العلم والبشرة والعلمية وفصل التطبيقات بقى بقولي بقولي فرطن إلا بقولي صدقية فرطن أيد كي يساعد الشركة مرة ليسان حل قدشة المواطنين حل قدشة هي مسؤوليات المواطنين أما مواطن سيدا مواطنكو حل كيسو بدنا هي مسؤوليات وقاعد كرو مواطن أيوة هذا عشر كين عروضها بدن كودو waxay ku dhashaan dalkii awoowayaasha carruurta badankoodu inta badan waxay ku dhashaan dalkii ay ka soo jeedeen ama awoowayaashooda masuulkooda ka soo jeeday ayay inta badan ku dhashaan marka laga reebo duruufaha gaarka ah labadiisa waalid waa muwaadiniin u dhalatay dalkooda sidaa darteed carruurtu waxay dhalasho ka qaataan iyaga oo dalkooda ku dhashay carruurtu labadiisa waalidna waxay noqonayaan muwaadiniin u dhashay dalka markaa kadib carruurtuna waxay qaadan kartaa dhalashada muwaadinka oo had iyo jeer carruurtu markay dhalato innaga waddankeena inta kunadeena looga sameeyo laakiin carruurtu markay dhalato waxaa loo sameeyaa warqad dhalasho oo muwaadinimo waddankiisa oo ku dhashay ah ayaa loo sameeyaa dadkii ku noolaa dalalka aynu deriska nahay ee qaxootinimada ku tegay waxa ay ku abtirsadaan dalalkoodii hooyo dalka had iyo jeer soomaalida waa dadkii xilliyadii dagaaladii waxa qaxay dad badan oo Soomaaliya waxay u baxeen wadamada deriska ay nahay kuwaas oo qaarkood dhalasho badan qaar badan dhalasho ka qaateen hase ahaatee lama odhanayo qofkaas hadduu Itoobiya qaatay waa Itoobiya waxa la odhanayaa waa Soomaali sababtoo maxay tahay dhalashadii awoowanimo ayuu haystaa tii asal raac ahayd ayaan ka hadhaynay hadduu Maraykan tago waxaa la odhanayaa waa Soomaali Maraykan ah la odhanayo waa Soomaali lama odhanayo waa qof Maraykan ah waxaa la odhanayaa waa Soomaali Maraykan sida loo yidhaahdo madowga dadka madowga Ameerika iyo waxaa ku nool loo yidhaahdo madowga Ameerikaanka ama waxaa loogu tilmaamo marka qof waliba haddana asalkiisii ayuu ka soo jeedaya hadduu dhalasho kasta qaato dalalka adduunka badankoodu waxay ogolaadaan carruurta ku dhalata dalalkoodu inay noqdaan kuwa muwaadiniinka ah dalalkaas wadamadu had iyo jeer carruuruhu markay wadamo kale ku dhashaan ama qaxootiha ku tagaan ama si kale oo sifo kale oo ku tageen marka ay tagaan dalalkaasi waxay u ogolaadaan maxay inay noqdaan kuwa muwaadiniinka ah dalkaas ay ku nool yihiin kuwa muwaadiniinka ah hadday dalka ku dhasheen waxay ka ogolaadaan inay noqdaan kuwa muwaadiniinka ah oo dhalasho ka qaata xataa haddii labadooda waalid qaxooti ku tageen dalkaas xataa haddii labadooda waalid ku tageen qaxooti dalkaas waxa ay qaataan dhalashada dalkaas sababtoo ah inuu waxaad arkaysaa carruuraha ku dhashay oo Soomaalida ay ku dhashay wadamada Ingiriiska Maraykanka ama Yurubta kale oo ku dhashay waxaa la siiyaa markay dhashaan dhalasho warqad dhalasho oo dalkaas ay qaataan iyadoo dadkooda waaweyna baasaboor ay leeyihiin ama si kale ay warqado kale leeyihiin iyagoo haddana waxay qaataan warqadaha dhalashada taa maxaa keenay dalka ay ku dhasheen ayuu qofku xaq ku yeelanaya dalka uu ku dhashay ayuu xaq muwaadinimo ku yeelanaya sidaa daraaddeed buu markaa dhalashada uga qaadanaya dadkaas dalalkaa shisheeye u guura ee halkaas jooga muddo dheer waxay qaadan karaan dhalashada dalkaas dadka dega wadamada Yurub soo kara ama Aasiyadas ee muddo dheer oo sanado badan ku noolaada waxay codsan karaan ama qaadan karaan inay qaataan dhalashada dalkaas ay qaataan waxayna xaq u leeyihiin inay soo codsadaan qaadashada dhalashada dalkaas waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan oo ay qaataan dhalashada dalka ay markaa ku nool yihiin ee ay tageen muddada aadka u faraha badan ku noolaayeen waxaana loo yaqaanaa qaadashada dhalasho qalaad waxaa loo yaqaanaa qaadashada dhalasho qalaad qofku wuxuu qaadanayaa dhalasho dal qalaad waxaa la yidhaahdaa qofku markaa waddankiisa dhalashadiisa qaadan ee waddan kale ka qaato dhalashada gabadha ama ninka guursado qof kale oo dal shisheeye u dhashay waxa uu isna codsan karaa qaadashada dhalashada dalkaas wuxuu isna codsan karaa qaadashada dhalashada dalkaas iminka marka qof waddanka iminka qof Maraykan oo kale markuu guursado qof Ingiriis ama Faransiisi wuxuu qaadanayaa ninkaasi ama gabadhaasi waxay qaadanaysaa dhalashada dalka qofka markaa guursaday uu leeyahay waddankiisa ayay qaadanaysaa haddii ay kala tagaan waxa laga yaabaa in lagala noqdo dhalashada isaga
waxaana loo yaqaanaa dhalasho guur. dhalashada noocaasa ama warqada dhalashada noocaasa waxaa loo yaqaanaa dhalasho guur ee ma noqoto dhalasho muwaadinimo ma noqoto. qofka muwaadinka ah wuxuu xaq u leeyahay dhammaan xuquuqda ay leeyihiin muwaadiniinta dalkiisa. qofka muwaadinka dalka ka ahi wuxuu xaq u leeyahay inuu helo wax alla wixii xuquuq ay leeyihiin muwaadiniinta dalka u dhalatay ama dalkaasi. isna waa inuu ka soo baxaa waajibaadka iyo mas-uuliyadda ka saaran dalkiisa iyo dadkiisa. qofkaas isna waa inuu ka soo baxaa mas-uuliyadda iyo waajibaadka ka saaran dalkiisa iyo dadkiisa oo aan odhanin maxaa iga galan inuu hadda waddanka ka dhashay ama aan u dhashay ama aan ka helay dhalasho aniga wax shaqo ama hawlo laygu leeyahay ma jirto. qofka muwaadinka isaguna xaq u leeyahay isagana xaq baa lagu leeyahay. imikaana waxaa ku yaala xaqa muwaadinka halkana waxa weeyaan mas-uuliyadda muwaadinka. maxay kala yihiin? xaqa muwaadinka waa wuxuu isagu xaq u leeyahay ee isagu u baahan yahay. mas-uuliyaddiisuna waa waxa isaga looga baahan yahay inuu qabto ama isagu saaran ama waajibaadka isaga saaran leeyahay. kow wuxuu xaq u leeyahay kow inuu hadli karo. qofka muwaadinka inuu hadli karo oo aan la caburin oo aan wuxuu doonaya ama wuxuu markaa ka cabanayo aan lagu caburin ee laga dhagaysto oo si fiican loo dhagaysto markaa kadibna wixii looga qaban karo looga qabto. laba inuu daryeel helo oo waddanka uu ku nool yahay ama waddankiisa uu daryeel ka helo ee aan noqonin imika waa aragtaa dadka darbijiifta oo kale maalin walba waa lasoo ururiyaa waxaa lagu soo ururiyaa xeryo halkaasoo lagu daryeelo wax lagu siiyo. maxaa loo daryeelaya? muwaadinimada ay muwaadinka ka yihiin dalka ay xaqa ku leeyihiin ayaa loo daryeelaya. saddex in loola dhaqmo si cadaalad ah. lana ixtiraamo. in cadaalad loola dhaqmo oo aan la hagardaamin ama la duldaabin ama dhibaato loo geysan ama aan qofka kale ee markaa aan qof kale looga xaq badanin ee la siiyo xaqiisa uu leeyahay. ixtiraam fara badanna loo muujiyo oo aan la odhanin ka soo qaadala carruurta darbijiifta oo kale aan la odhanin oo darbijiifta lahaydaan bareeta ee uu noqdo qof la mid ah qofka madaxda ee la jooga ama qofka gacanta ku haya qof la mid ah loo arko sida loo ixtiraamayo loo ixtiraamo. afar inuu noolaado. qofkaasi inuu noolaado loo ogolaado inuu noolaado ama nolol helo oo aan lagu dhaafin meelaha dhibaatooyinka ama darbiyada ama dhibaatooyinka ama xanuunka lagu dhaafin ee uu noolaado oo wixii uu loo qaban karo loo qabto si uu naftiisa u badbaadiyo ama loo badbaadiyo naftiisa. shan inuu taageero loo geysto marka dhibaato ku timaado. in la taageero ama la caawiyo marka uu dhibaato ku timaado ee ay howlo badan la soo darsaan awoodeedina uu waayo ama uu dhaqaale u waayo in la taageero ama la caawiyo oo la dhinac istaago. lix in loo naxariisto. inuu mar walba naxariis loo muujiyo aan cadaawad iyo xumaan aan la tusin ee mar walba loo muujiyo inuu qofkaasi naxariis fara badan loo hayo ama la jecel yahay loo muujiyo. in la jeclaado. in qofkii la jeclaado oo aan laga dhigin qof iska nool unaan laga dhigin ee uu noqdo qof la jecel yahay oo dadka ka mid ah. waayo dadka ehelkaaga guriga kula jooga waad wada jeceshay soo maa. qofkaa kale ee bini aadamkaana inaad sidaasoo kale u jeclaato aadan odhanin aniga ka maxaan wadaagnaa maxay iga galay ee aad u jeclaato sida waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno eewean mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno eewean mayno guul wacan cadowka waabto
nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akuwaano waadinkeena guul wacan cadowka waafo nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akuwaano wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinaya dhiigo aan ku arkeena wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinaya dhiigo aan ku arkeena تضلع إنه جعل بالشدة استقبل على شعره قف بالشدة كم دعاية غيره وإنه يسوونه كم من نقطاتك بالشدة ولا شعر بالشدة وحقه مريا يعمل مقولين قف ضنا يستعر يوم وقف الضريات تتكون سلاس أيوة عشان كلمة عشان يقول لي هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.